بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. weli waxaan ku dhex jirnaa youtubekii sheekh xasan ibraahim ciise, waxaanana kaga dhex sugannahay qeybihii riyooyinka iyo ta'wiilkooda. xalaqadii tii aan soo dhaafnay ku xigtaan usii gudbaynaa. qofka koowaad ee soo qoray wuxuu yidhi: assalaamu calaykum sheekh xasan ibraahim ciise. aniguna wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu baan ku leeyahay. 2 habeen oo kala fogfog ayaan ku riyooday aniga oo la idilaayo oo madaxa bastoolad laygu dhufanayo ayaan ku riyooday. wax ciidan ahna shaqo kuma lihi. allaha naga raali noqdo, allahuma aamiin. aamiin buu soo qoray. dilka qofka la dilo riyo, qisaas ahaanna loo dilo, waxaa lagu fasiraa cimri dheer. walakum fi lqisaasihe xayaatun ya ulil albaab. marka taasaa lagu fasiraa. balse haddaysan qisaas camal ahayn oo qofka riyada saa laysaga dilo, waxaa lagu fasiraa dhowr ta'wiilaad oo fara badan. midda ugu fiican ee ugu fudud uguna farxadda leh haddii aan ka soo qaadano, waxaa lagu fasiraa oo la yidhaahdaa waa caafimaad. qofkan inuu caafimaad helayo insha allahu tacaala. dhiig waxaa lagu tilmaamaa waxyaabo dhib badan. qofku hadduu gudaha ugu jiro uu ku halaabana cudur buu ku noqdaa. laakiin qofka haddii inta la dilo ama wax lagu dhufto dhiig way bannaanka usoo baxo, qofka inuu caafimaadayo oo xanuunka haya ilaahay ka qaadi doono wixii jiraba. taasaa markaa lagu fasiraa. midda xigta: assalaamu calaykum sheekh xasan ibraahim. wacalaykum assalaam. waan ku salaamay sheekh. waxaan rabaa inaad ii fasirta riyo aan ku riyooday oo ah anoo laygu xiray xabsigana waxaa igula jira gabar saaxiib nahay. maasha allah. kanoo kale dadku waxay dhahaan ama dhalinyarada way kuu dhacatay sooma. allahu akbar. ilaa khayrkana waafaji. gabar saaxiiba nahay ayaa igula jirta iyo dad kale. marka xabsiga inta joogta anilee ka oynayo oo ka murugaysan. xabsiga dadka kale way iska aamusan yihiin. anina dareenkayga aad baan u murugaysnaa, waana oynayay. weliba liidhahayo 4 sano ayaa lagugu xukumaa. aad baan uga naxay oo rajo ma dareemeen. marka maxay tahay shiiqow ii fasir, ilaahay ha ku xafido. sheekh, waxaan ahay gabar weli aan guursan, ii soo duceey. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. way kusoo gabagabaysay inanta warqadeeda. waxayna ku qoran tahay far aad iyo aad u qurux badan, inkastoo kombyuutar lagu soo qoray. xabsiga marka lagu fasiro qofka ama uu ku riyoodo, waxaa lagu fasiraa dhowr sanaan. maasha allah. xabsiga ma xuma riyadiisa. sidiisa kale uu dhib badan yahay maahane. waxaa lagu fasiraa qof xabsi ku jira, qof dhowrsan, waxyaabo fara badanna iska ilaalinaya. wuxuu yidhi dadkii way wada faraxsan yihiin, laakiin aniga waa oynayaa. ooyintaa meesha uu ka oynayo dunuubtii, dembiyaalkii, waxyaabaha noocaas ah yaa lagu fasiraa. qof taa'ib ah oo inta dembi galay ama ka tooba keenaya, taana markaa waa lagu fasiraa. dadku way iska aamusan yihiin buu yidhi, anigana muruga i haysaa. dhanka aakhiraan la aadaynaa insha allahu tacaala. waa riyo wanaagsan. khayr fara badan ilaahay ha kaaga yeelo, ha kuu dhex yeelo. ilaahi subxaana wa tacaala agtiisa khayr fara badan ka rajay insha allahu tacaala. 4 sana lagugu xukumay, macnaha xabsigii baa sii dheeraaday. is-ilaalintii baa sii dheeraatay. macnaha is-ilaalintii yaa sii dheeraanaysaa. marka aad iyo aad cibaadada ugu dadaal. taasay kuu muujinaysaa insha allahu tacaala. midda xigta: assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. wacalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatuh. sheekh, ilaahay ha ku xafido, allahuma aamiin. waxaan ku riyooday ayadoo qoraxdu dhanka galbeed ka soo baxayso oo dadkii oo dhan iska bashalayan aan oynayo.
oo dadkii oo dhan iska baashaalayaan anna aan oynayo, weliba zaa'id ayaan u oynayaa. Markaasaan dhahay alla wacdigii oo alla waa caadil oo in dembi dhaafaya. 3 jeer baan ku riyooday, aan zaa'id casho aan tukan baan seexday. sheekh ii fasir kheyr fara badan allah ku siiyo, allahuma aamiin. cibaado yari way tilmaantaa qiyaamihii oo dhacay haddii la arko, qofkiina naxsan yahay, murugaysan yahay, waxaa leeyahy cibaadada badso, cibaadada ziyaadi, wixii aad qaban jirtay wax ka badanna qabo. saasaa lagu fasiraa. midda xigta, sheekh habeenkii ugu horreysay ee aan gamay anoo salliga nebiga afka ku haysta aan hurday baan u qaatay. waxaan ku riyooday wax sidii qof u xijaaban iyo indhashareer wadata oo gudaha ka ololayo. ayaan xaggeeda anoo akhrinayo aayatul kursi ayaan inshareerkii ka qaaday. waaba xijaab wato. sheikh ii fasir, ilaahay ha ku barakeeye. raal adigoo ah dib noogu soo celi insha allahu tacaala riyadan, weliba si deg deg baan ugu soo jawaabi doonaa ilaahay idinkii. midda xigta, sheikh iisoo duceey in uu alla iga reebo wax walba oo xumaan ah. allahuma aamiin. annagoo dhan ilaahay saasaan ka baryaynaa, adigana si qaasaan ilaahay kaaga baryaynaa. qalbigayga ku jira dadka ayaan qalbiga ka xantaa oo waan ka nacaa, kadibna waan ka shalaayaa. sheekh iska jooji insha allahu tacaala, qalbigaagana muslimiinta khayr iyo wanaag iyo farxad u geli. ilaahayna khayr ha ku siiyo, qalbigana allah kuu nadiifiyo. midda xigta, sunniyaha la dhisto ama daabamadoobayso lagu qurxiyo. indhashareer ayaan qaataa oo rag ajnabi wejigayga ma arkaano, haddaan marsado oon isku qurxiyo ma dembibaa? baaraka allaahu fiik sheekh, jawaab ayaan kaa sugayaa. inkastoo riyo ahayn ay su-aal caadiya tahay, haddii aad indhashareer ku dabooleysid oo qofna kaa arkayn maxaa ka marsanaysaa? sidana daawamadoobeysada iyo sunnooyinka wax lagu tilmaamo iyo si wanaagsan uma fiicno, diintu ma amaanin. marka insha allahu tacaala markaad nin guursato, haddaad wiil gabar tahay waaba tahay insha allahu, ye allahna gaarsiiyo. markaasna wixii xalaal ah oo nadiif ah oo ay diintu ogoshahay yaad isugu qurxin doontaa. laakiin hadda adla is qurxinaayo, indhashareera qaadanaya, soo noqonaya, adla is arkaaya, waaba isnacaysaa marka dambe, soo ma aha? marka iska jooji insha allahu tacaala, sidaada kale isku qurxiso iyo wixii aan daawooyin iyo kiimikaadya ahayn. su-aasha xigta ama qeybta xigta, assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. sheikh ilaahay ha ku xafido, allahuma aamiin. waxaan ku riyooday ayadoo qoraxdu dhanka galbeed ka soo baxayso oo dadka oo dhan ay iska baashaalayaan. waan soo marnay ilaa waxaan soo marnay sunniyaha, soo maaha? midda xigta, assalaamu calaykum abti, see tahay xaaladda? abti khayr allah ku siiyo, cumri dheer iyo caafimaadna ilaahay ha ku siiyo insha allah. abti, waxaan ku riyooday anigoo nin i qaba oo nin kale i guursaday, oon gurigiisa u joogo oo isku samaynayno oo isla seexanayno dheraal ahaada oon isla seexanayno, ninkana weligay maanan arkin. markaasaa igu horreysay. waxaan ku riyooday anigoo guriga habaryartay aaday oo iyaduna degan tahay meel buur ah, waxayna isiisay maracad. markaasaan tegey. qaybtan dambe hore ayaan u fasirnay baan filayaa, ama qaybta hore laftigeeda waan filaya inaan fasirnay. waxayse ila tahay ninka iyo naagta markay isqabaan, labadooda mawaddi iyo kalgacayl baa loogu talagalay. naagta hadday ku riyooto iyadoo ninka la jiifto ama guursanaya, jacaylkii ninkeeda u qabtaa weyn oo kiisaa yar. ninka hadduu uu ku riyoodo xaaladaasoo kalena, maxabada uu xaaskiisa u qabo ayaa weyn oo ta iyada u qabtaa yar, oo mid kasta ka kala baahi buu qabaa. taasaa markaa loola jeedaa.
wax kaloo dhibaataa markaa ma laha insha allahu tacaala. midda xigta, assalaamu calaykum abti see tahay? waa fiicanahay xaaladda abti, khayr allah ku siiyo iyo cumri dheer iyo caafimaad allah ku siiyo insha allah. waxaan ku riyooday anigoo nin iqaba, waa tii hadda aan fasirnay. meesha haynoo joogto, xalaqada xigta ayaanu raacsiin doonaa inta dhiman. wabilaahi towfiiq, wallahu